Madaxweynaha dowladda Syria Axmed al-Sharac waxa uu jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo uu kaga hadlay Syria iyo dhibaatada ka jirta. Khudbadan waxa ay ku soo beegantay iyada oo maalintii shalay diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay duqeeyeen xaruntii ugu weyneed ee wasaaradda gaashaandhigga ay ku lahayd bartamaha magaalada Dimashq oo ah caasimadda dalka Suuriya. Muuqaaladan waxa ay muujiyeen iyada oo telefishinka Al Jazeera iyo telefishinada qaar ay si toos ah u tabiyeen xaaladda dalka Suuriya, iyadoo la burburiyay xaruntii ugu weyneed ee ugu muhiimsaneyd ee taliska ciidamada dowladda Suuriya. Khudbadiisa maanta markaa waxa uu kaga hadlay guud ahaan dadka shacabka ah ee Syria, fariin oo u diray, iyo fariin diblomaasiyadeed ee ku wajahan Israa'iil iyo dowladaha gobolka sida Turkiga. Waxa uu sidoo kale fariin u diray dalka Mareykanka. Wuxuu yiri dadka shacabka ah ee reer Syria dagaal kama baqanayaan oo way garanayaan shacabka geesiyaalka ah weligood kama aysan noqonin mabda'ooda adag, kuwaas oo naf iyo maalba u huray sidii ay Syria u noqon lahayd dal xur ah oo madax bannaan.